ardayda Boosaaso Public Secondary School waxaan halkan ka soo jeedinayaa in la yiri yani anagoo arday foonfoora oo 12 sano wax soo baranay xaqna u leenahay in shahaadadayda buuq la geliyo oo labada dawladood ay madaxa isla galeen waxaan kala halkan ka sheegayaa yani anagoo arday Soomaaliya nahay Soomaaliya ha noolaato waxaan sheegayaa in uu yiri wasiirka waxbarashada yani waxaan arkay arday yani shahaadada Puntland waxay ku tagtay Uganda laakiin waxa waa khiyaale arday walba oo Puntland ka taga wuxuu shahaadadiisa ku dhigsadaa Soomaaliya waxaan nahay Soomaali mana doonayno anagu Puntland Soomaaliya hanigoodo kana ka sheego oo digniin ugu diro cid kasta oo dawladda federaalka mucaaradka anagu waxaan garab taaganahay dawladda iyada waxaan u baahanahay imtixaan aan ku qanacno mustaqbalka iyaga hooyooyinka iyo darbiyada ayaa la fadhiyaan bartiin ka soo jeeday waxay tahay inaan u sheego cid kasta Soomaali diida anaga Puntland waxay noo tarayso male waxaan nahay Soomaali waxaan doonaynaa hal imtixaan aan wada galno waa mid labaad Soomaali waan sheeganaa waxaan ugu baro waa English haddaan Soomaali oo ugu baro haddaan nahay macnaha aan sheegin ciida Soomaaliyeed aan leeyahay Soomaali baahay waxaan isku haystaa shahaadada qaadiyo kuwa qaadiyo inaan qof Soomaali waxaan ahay qof ku soo bartay luqadda Ingiriiska laakiin anigu waxaan doonayaa bartiin ka sheego waxay tahay waxaan doonaynaa luqaddeena in la soo cesho waxaan doonaynaa Soomaali ku barno waxaan doonaynaa inaan noqono Soomaali isku tiirsan dad dalkooda dadka wax u qaban kara Puntland marna kala qaybsiga Soomaaliya marna anagu Soomaali baan anahay Soomaali aragna khalkhal ma garabna in loo galo wasiirka Puntland khalkhal laga galiyo shahaadada marna Soomaaliya analaata marna Puntland waxaan kan ugu mahadcelinayaa buuqa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee halka taagan iyo SBC oo helan danaha bulshada Soomaaliyeed maanta waxaan soo booqday wasiirka waxbarashada Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay ilmaha kuma jiro waxaan soo booqday wasiirka waxbarashada Puntland waxa uu ka dhawaajiyay in dalal badan lagu tii karo shahaadada Puntland saasha wadida wasiirka waxa weeye ma i'tiraaf koob shahaadada bixinaysa mudane wasiir see wax ku wada maamul goboleed baa tahay shahaadada xaq laga qoonsan yahay riyaalka iyo xaqiiqada waxaan rabaa meeshan bari khaasan iskoolka dugsiga sare Boosaaso Public Secondary School waxa maanta ka haynaa shahaadada muranka gashay ee Soomaaliyeed ana runaantii waxaan arday Soomaaliyeed man arday Puntland